السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قيادة كحرين جنالك إنجنير أبدا سو دبادا آدم فرحسناه إن أنسو جبجبينا كورسودين HTML ka iyo CSS ka koorsada HTML ka CSS ka waxaan ku soo baranay guud ahaan oo waliba si asaasi ah waxaan u soo baranay sida website loo soo bilaabo from yani beginner loo soo bilaabo scratch loo soo bilaabo ilaa qofka meel fiican oo ka soo gaaro. sidoo kale CSS kan waxa ka soo aragnay oo website ka sida loo qurxiyo iyo waxyaabaha ku saabsan aha. insha Allah koorsadan waxaan ku falanqeyn doonaa wax loo yaqaan JavaScript. JavaScript waa mid ka mid ah teknolojiyada loo adeegsado website-yada in lagu dhiso. saddexdaasi ma kala dhacaan bay HTML iyo CSS iyo JavaScript waa related isku yihiin saddexdooda. waana waxyaabaha aad isku tiirsan waa si website loo sameeyo. marka hore waxaan fiirinaa maxaa la hor JavaScript waxaan ku soo koobay waa teknolojiyada loo adeegsado website-ka wana saddex teknoloji mid ka mid ah waa HTML CSS ka JavaScript saddex ku ah. marka si kooban waa programming language loogu talagalay in lagu aasaaso web page ka waaye maanta la joogo waa most popular programming language waaye luqadda sheekasi programming ugu caansan dunida maanta waa la isticmaalo JavaScript. sidoo kale web page ka loogu talagalay waa programming language oo loogu talagalay waa web page ka wax ka qabata ayada versionada kala duwan ee soo martay JavaScript sida meesha idin kaga muuqato markeeda ugu horeysa soo saaray waxay 1995 magaceeda standardka wuxuu ahaan jiray EGMA standard EGMA ali jiray 1997 soo isku bedelay kadib EGMA script loo bixiyay magac official ay yeelatay. wixii ka dambeeyay intaas magaceeda waxa loo soo gaabin jiray ES1 ES2 ES3 ES4 ES6 ilaa laga gaaro ES4 waa laga booday ES5 waa loo booday inkastoo sanadkaas aan la update gareynin. ES taas waxaa laga soo gaabiyay EGMA script ayaa laga soo gaabiyay markii EGMA 6 ay maatay 2006 laga soo bilaabo marka ilaa wixii ka dambeeyay waxaa loogu wacaayay EGMA script marka sanadka lagu daray versionkaas waxaa la leeyahay named by aya sanadka lagu daray macnaha EGMA script 2016 17 18 19 20 saasa marka magaca loogu daray. waxaa jira marka saddex teknolojiyo loo adeegsado in website-ka lagu dhiso waana saddexdan xabo oo hadda maanta focus waxaan ku saari doonaa JavaScript-ga. HTML CSS ka daan soo fahmin fadlan jaraal kula waxoogaa waxaan ka soo fahmin labada aad soo fahmin tan way adagtahay inaad fahantid. marka beginner ka bilaw doonaa ilaa professional qofka oo gaaro wax fiican oo ka fahmo maxaa u baahanaa marka si koorsadan aan u barano. waxaan u baahanaa laba shay sida HTML ka CSS ka aan u baahneen already waxaan rajeynaa qof walba computer-kiisa ugu jiro code editor u baahanahay waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaan VS Code ama Visual Studio Code. maxaa loogu talagalay asiga koodkan ku qoraynaa meesha laga arkayna web browser waxa labaatan u baahanahay marka iyadana waa web browser qof walba waxaan rajeynayaa in Google Chrome ugu jiro ama Microsoft Edge si hadhow markii koodka aan soo qorno aan daalacano meel aan ka daalacano si loo helo oo aan fiirino waxaan inay sax yihiin inay shaqeynayaan san u fahanno. waxaan u baahanahay marka Chrome u baahanahay ama Microsoft Edge hadduusan computerka ku jirin sidee loo soo degsadaa muuqaalkii oo hore aan u hadli jiray HTML ka ayaan ku soo duubay eedo qoraal ayna waatana Google Chrome ka tagay hadduusan Chrome ku jirin naftigiisa Microsoft Edge tag kadib qaybta sare waxaa ku qortaa Visual Studio download kadib download dooro ku shubo computerka kadib markaas saas ayuu computerka u shubmay. Chrome naftigiisa doo kugu jirin oo Microsoft Edge ka gal kadib naftigiisa qaybta sare waxaa ku qortaa Chrome download kadib download soo dheh computerka ku shubo naftigiisa meesha ku dhameysay. waa intaas on labadaas xabisan u baahanahay si waxaan dhan aan u shaqeynaa aan u sameeyno. insha Allah muuqaalkan meeshan ku soo koobaa marka cashirkan hordhac yar oo ahaana oo JavaScript maxaa la lahaa iyo xilliyada meelaha xalaha ay soo kala martay. muuqaalka kale insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa koodkan ugu horeeyo waxaan qoran doonaa marka insha Allah oo JavaScript-ga cashirka waa yareysanayna si aan u fahanno maadaama beginner aan nahay. aad u mahadsantiin ha iloobina channelka inaad subscribe saartaan lana wadaagtaan saxaabtiin oo muuqaalka u share galisaan intaan ku kulmeen muuqaalka xigo fi amaanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.